السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعانا وناسن وقيبتي لبي تبناد قصة wiilkii goobay wadada guusha. wiilkii yaraa wuxuu yiri maxay tahay aasaaska labaad? ninkii ayaa ku jawaabay waa aqlaaaqda. aqlaaqdu waa sifooyinka ugu muhiimsan ee dadka Ilaahay adeeca muqliska u ah ee Ilaahay jecel ay leeyihiin. waxaa laga yaabaa inaad shaqo ku fiican tahay ama maado aad ku fiican tahay, laakiin haddii aanad aqlaaqdaadu fiicnayn, sidee baad naftaada iyo dadkaba ula dhaqmi? aqlaaqda ayaan dadka qulubtooda ku kasbanaa oo aan ku qancinaa waxa aan doonayno. aqlaaqda ayaan ku garanaa masaalixda dadka ka hor inta aynan garan masaalixda nafteena. sidaa awgeed ayuu Ilaahay Quraankiisa ku yiri isagoo rasuulka amaanaya, waxaad ku sugan tahay aqlaaqda teeda ugu fiican. Ilaahay ma oran aqlaaq kaliya ee wuxuu yiri aqlaaq aad u sareysa. Nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo arinta si adkeynaya oo ayidaya ayuu yiri, aniga wax kale la iima soo saarin, waxaa la ii soo diray inaan dhameystiro aqlaaqda teeda ugu fiican. daba wiiliyo waxaa waajiba ku baraarugsanato aqlaaqdaada. qaabka aad dadka ula hadlayso waxaan ku siinayaa saacado yar kadib arrin muhiim ah, sida aad ku helayso aqlaaq wanaagsan, maxaa yeelay taas la'aanteed adduunyada kuma noolaan kartid nolol wanaagsan. wiilkii yaraa hadalkaas ayuu wax ku darsaday oo wuxuu yiri, mar ayaan waxaan ka akhriyay kitaab arrin yaab leh. mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn caalamka ayaa waxay sameysay cilmi baaris oo ay ku ogaatay xirfadda qofku leeyahay waxay ka dhigan tahay 7%, halka aqlaaqda looga baahan yahay ay tahay 93%. kana anigu ma fahmi karin macnaha hadalkaasi ku fadhiyo ilaa aan kitaabkaas akhriskiisaba iska dhaafay, waayo waan fahmi waayay. anigu tusaale ahaan waxaan dhigtay dugsigii hoose, haddana kii dhexe, haddana kii sare, haddana jaamacad baan galay, haddana masterkii baan galay, haddana waxaan diyaariyay PhD. iyadoo ay sidaa tahay ayaan ka maqlayaa in waxaas aan soo sheegnay oo dhan ay ka dhigan tahay 7%, taasoo ah in aqlaaqdu ay tahay wax kasta, oo ay aqlaaqdu shay kasta ka muhiimsan tahay, oo ay aqlaaqdu Ilaahay agtiisa muhiim ku tahay, oo Ilaahay ku dhaweynayso, waayo aqlaaqda ayaa dadka kula tacaamulaysa. aqlaaqda ay dadku kugu jeclaanayaan oo ay kugu soo dhawaanayaan. balse ii caday sidee bay xirfadu u tahay 7%? wuxuu yiri waa suuragal inaad shaqo kasta baran karto siday doonto kugu adkaatee, maadaama uu ruux kale bartay adiguna waad baran kartaa, ama bil ama sanad ama wax ka badan ku baro, ugu dambeyn kii barta baa tahay. maxay tahay sababta inay jiraan dad guuleysta iyo qaar kale oo fashilma, dadka meel sare gaara iyo qaar aan meelna gaarin, iyada oo haddana dadku sifooyinkii afarta ahaa ay leeyihiin dareemada shanta ah? sifooyinka afarta ahaa ee aan soo sheegnay ay wadaagaan dadka oo dhanina waxay leeyihiin dareemada shanta ah: tamar, fikir, waqti 24 saacadooda maalinkiiba. muxuuse yahay faraqa u dhaxeeya qofka meel sare gaara iyo qofka kale? waxaad ogaanaysaa faraqa u dhaxeeya inuu yahay wixii aan soo sheegnay. waxaan arkaynaa in ruuxa meel sare gaara aqlaaqdiisu ay aad u wanaagsan tahay. haddii ay mushkiladii ka hor timaado, si dhaqso ah ayuu iskaga iloobaa, sababtoo ah ma haysto waqti uu ku lumiyo xusuusta wixii dhacay. wuxuuna og yahay in waqtigiisu xadidan yahay oo laga yaabo in waqtigan uu yahay kiisii ugu dambeeyay. wuxuu u fikirayaa si sax ah oo wacan. ruuxa wanaagsan wuxuu naftiisa weydiinayaa had iyo jeer, ma dhici kartaa in saacadani tahay tii ugu dambeysay noloshayda? jawaabtu waa haa. naftaada weydii, wixii iminka aad sameynaysaa ma u qalmaan qiimaha waqtiga yar ee ku haray? haddii aanay aqlaaqdaadu wanaagsaneyn oo aad tahay mid caro badan oo had iyo jeer gubanaya oo kacsan, waxba guul ma gaari kartid. aqlaaqdu waa wax la kaydsado, waxa ugu fiican. hore waxaan uga soo hadalnay iimaanka, saamaxaadda. suuragal ma inaad si buuxda wax u saamaxdaa ilaa aad noqoto ruux Ilaahay rumaysan oo Ilaahay adeecaya oo camalkiisana Ilaahay u barax tiraya. taas oo keenaysa inaad
oofisa wixii aad Ilaahay iyo dadkaba kula ballantay. Marka waxaasoo dhan samayso, taasi waxay ku gaarsiinaysaa aqlaaq wanaagsan. Waxaan ognahay in ruuxa aqlaaqda wanaagsani ay dadku jecel yihiin oo ay jecel yihiin inuu la joogo. Waxaad arki ruux guuleysta sare ah, laakiin haddana keligii taagan. Maxaa yeelay dadku ma jecla aqlaaqdiisa xun awgeed. Aqlaaqdu waxay ku gaarsiinaysaa meel kasta iyo wax kasta oo fiican. Ilaahay wuxuu inaga kala dhigay shacabyo iyo qabaa'il kala duwan si aan iskugu garanno, sida Ilaahay Qur'aankiisa noogu sheegay: yaa ayuhan naasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda Allaahi atqaakum inna Allaaha caliimun khabiir. Aayadda 13 suuratul Xujuraat. Waxaan idin abuuray lab iyo dhadig, waxaan idinka dhignay shucuub iyo qabaa'il kala duwan si aad iskugu garataan. Laakiin kiina Ilaahay ugu dhowi waa kiina Ilaahay ugu cabsida badan. Waxaan ognahay in haddii ruuxa aqlaaqdiisu aanan fiicnayn ay dadku ka kala yaacayaan, sida Ilaahay Qur'aankiisa ku sheegay. Haddii aad ahaan lahayd mid qalbi adag oo dabiici xun, dadku agtaada way ka yaaci lahaayeen. Aqlaaqdaada wanaagsan, jacaylka Ilaahay aad jeceshahay, carabkaaga macaan ee Ilaahay xusaya, waxaasoo dhan awgood ayay dadku kugu jeclaanayaan. Wiilkii yaraa, waxaan u maleynayaa hadalkan waxaa taageeraya oo ayidaya hadalkii Axmed Shawqi: ummaduhu waa aqlaaq inta ay jiraan, haddiise aqlaaq laga waayo, iyagana waa la waayayaa. Ninkii ayaa yidhi: u fiirso arrimahan wiilyahow, waa adiga durba hadalkayga hadal wanaagsan ku biirinaya. Hadalkaas iminka ka soo baxay wuxuu tusinayaa inaad Ilaahay jeceshahay. Sidaa awgeed ayuu Ilaahay carabkaaga ka dhigay mid macaan. Aniguna waxaan ku xusuusinayaa xikmad Carabiya oo tidhaahda: dhulka isdhig adiga oo sarreeya, sabir xikmad awgeed, cadaalad samee adiga oo awood leh, iska cafi adiga oo aarsan kara. Wiilkii yaraa ayaa yidhi: hadalkani aad buu u macaan yahay, waxaana iminka dareemayaa inaan qaabili karo dad aad u badan. Maxaa yeelay waxaan ku hubaysanahay jacaylka Ilaahay iyo ku xirnaanshaha Ilaahay, daacadda iyo ikhlaaska, oofinta iyo niyad wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan ee aan dadka kula tacaamulayo. Xaakimkii ayaa wiilkii yaraa u soo dhowaaday oo ka dhunkaday labada dhaban, isaga oo qoslaya, kadibna ku yidhi: Ilaahay ha kuu furo albaabadiisa, waanaad arki doontaa sida Ilaahay khayraadkiisa kuugu furi doono insha Allah. Maxaa yeelay waxaad baratay dariiqii aad ku gaari lahayd guusha sare, kaas oo dhabtii ah dariiqa Ilaahay. Wax kasta oo aad samaynayso waxaad u samaynaysaa Ilaahay daraaddii. Dadka aad la dhaqmayso waxaad ula dhaqmaysaa Ilaahay daraaddii. Ilaahay daraaddii ee dadka u saamaxaysaa. Haddii aan dadka nahay, waxaan nahay dadkii Ilaahay. Laakiin haddana waxaa jira shay kale oo muhiima, wiilkaygiiyow. Kadibna wuu u soo dhowaaday, wuxuuna ku yidhi: wiilka yarow, iska jir oo dadka ha kula tacaamulin dhaqankooda mid la mida. Kaasi waa darsiga ugu horreeya ee ka hadlaya sida dadka loola dhaqmo. Ku dadaal had iyo jeer inaad kala saarto ruuxa iyo habdhaqankiisa. Wiilkii yaraa: ma fahmayo hadalka, sidee baan u kala saaraa ruuxa iyo dhaqankiisa? Xaakimkii ayaa yidhi: insaanku waa makhluuqa ugu fadliga badan inta Ilaahay abuuray. Ilaahay wuxuu Qur'aankiisa ku yidhi: Ilaahay wuxuu idin abuuray abuuritaankiisa ugu fiican, waxaana sharaf inoogu filan inuu Ilaahay inagu abuuray gacantiisa oo uu inoo sakhiray cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysaba, sida Ilaahay Qur'aankiisa ku caddeeyay. Waxaa suuragal Ilaahay u ahayd inuu ku yidhaahdo ahaw oo aad ahaato, laakiinse si uu kuu karaameeyo oo uu kuu weyneeyo ayuu gacantiisa sharafta leh kugu abuuray. Wax kasta oo kalena adiga ayuu kuu abuuray si aad ugu intifaacsato. Wuxuu ku siiyey maskaxdaasoo ay ku jirto
150 bilyan oo unug caqli ah oo awoodda qaadkeeduna yahay ilbiriqsigiiba 2 milyuun oo macluuma, kaas oo ka dhaqso badan xawaaraha iftiinka. Xawaaraha iftiinka waa 186,000 oo mayl ilbiriqsigiiba. Wiilkii yaraa ayaa isaga oo yaaban fiiriyay ninkii oo yidhi, miyaad yaabtay? Miyaanu Ilaahay odhan, wa fii anfusikum afalaa tubsiruun? Miyaadan arkayn sida naftiinna aan u abuuray? Xaakimkii ayaa hadalkiisa sii watay, wiilkaygiiow, waxaa kugu sugan waslad hiliba waa qalbiga, wuxuuna garaacaa 100,000 oo jeer maalintii kaliya, adiga oo aan dareemayn wax kasta oo gudahaaga ku sugan wuu dhaqaaqayaa. Dhaqaaq xigmadaysan, Ilaahay wax kasta wuu kuu sakhiray. Haddii aad go'aansato inaad dhaqaaqdo, waad dhaqaaqaysaa. Ilaahay xubin kasta oo jidhkaaga ka mid ah wuxuu u abuuray inay ku adeecdo oo sida aad doonto ka yeesho. Sidaa awgeed, wiilyahow, waa inaad ku baraarugtaa kala saaridda ruuxa iyo habdhaqankiisa, maxaa yeelay ruuxani waa inta Ilaahay abuuray kii ugu khayrka badnaa, oo ruuxdiisa ayuu ku afuufay oo wuxuu ka dhigay inuu dhulka wakiil uga noqdo. Sidaa awgeed bay tahay inaad kala saarto ruuxa iyo habdhaqankiisa. Wiilkii yaraa oo sidee baan habdhaqanka qofka i yaraystay u beddeli karaa? Xaakimkii, waxaad awoodda saartaa mowduuca uu ka hadlayo. Yaraysiga waa sida aad wax u fahantay, sida wejigiisu cabirayo dhaqdhaqaaqa jidhkiisa iyo neefsigiisa. Laakiin su'aashu waxay tahay, maxaa ruuxa gaarsiiyay xaaladda uu ku sugan yahay? Wiilkii yaraa ayaa fiiriyay xaakimkii oo yidhi, dhabtii aniga ruux baa maalin maalmaha ka mid ah igu yidhi, doqon yahow. Waxaan ugu jawaabay, maxaad sidaa iigu odhanaysaa? Wuxuu igu yidhi, maxaa yeelay waad i yaraysatay. Waxaan ku idhi, kuma xaqirin. Wuxuu igu yidhi, maya, waad i xaqirtay markii aad sidaa iyo sidaa igu tidhi. Waxaan ku idhi, maya, taa cagsigeeda, anigu sidaa uma jeedin, waxaan u jeeday wax kale. Almuhiim, imikana iga raali ahow. Wuxuu igu yidhi, anigu waan ka xumahay hadalkii aan kugu idhi ee caayada ahaa, raalli iga ahow. Xaakimkii, tani waa aqlaaaqda, waana ujeedada aan ka leeyahay mowduuca. Awoodda saar ee qofka ha u fiirsan, maxaa yeelay habdhaqanka qofka waxbaa keenaya ayaa la rabaa inaad ogaato. Haddii aad sidaa yeesho, waxaad noqonaysaa dadka ugu fiican ee xidhiidhka bulshada yaqaan. Tacaamulka noocan ahina wuxuu ku gaarsiinayaa qodob muhiim ah oo ah inaad iswaafaqdaan adiga iyo qofka kale. Haddii aad heer ka gaadhana, waxaad ogaataa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku barakeynayo, maxaa yeelay ruuxa kale, xataa haddii uu yahay mid cadho badan, waxay xigmadaadu kuu suuragelinaysaa inaad cadhada ka saarto. Haddii aad habdhaqanka awoodda saarto, meesha waxaa imaanaya raddul ficil. Mar haddii uu raddul ficil yimaadana, adiguna naftaada ayaa difaacaysa, taas oo aan loo baahnayn. Ujeedada ugu muhiimsan waxay tahay inaad adigu ra'yigaaga siiso mowduuca laga hadlayo ee aan ra'yigaaga siinin qofka. Marka ay jirto mushkilad weyni, waxaa muhiim ah inaad mar walba ogaato in ruuxani uu yahay ruux Ilaahay abuuray ka ugu fiican. Waxaan kugula talinayaa inaad had iyo jeer awoodda saarto meelaha aad ruuxa isku waafaqsan tihiin, oo aad ka digtoonaato inaad awoodda saarto meelaha aad isku khilaafsan tihiin. Haddii aad ka bilowdo arrinka meelaha aad isku khilaafsan tihiin, ruuxa kale wuu isdifaacayaa oo waxaa kordhaya garaaca qalbigiisa oo neeftiisa ayaa siyaadaysa, heerkulka jirkiisa wuu kordhayaa, dhiiggiisuna wuu karayaa si uu naftiisa u difaaco. Si aanay taasi u dhicin, waxaad had iyo jeer doodaada ka bilowdaa meelaha aad isku waafaqsan tihiin. Qodobkani muhiim buu u yahay wanaajinta xidhiidhka bulshada. Wiilkii yaraa ayaa weydiiyay, haddaba haddii aan ruuxa isku khilaafno, maxaan sameeyaa? Xaakimkii wuxuu ugu jawaabay, waxaad samaysaa shay aad u muhiim ah oo ah inaad
la tacaaduftid. Wiilkii yar ayaa weydiiyey, oo muxuu yahay tacaadufku? Intaa inoo joogto qaybtii 12aad qisada wiilkii goobay wadada guusha. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore inoola joogtana la wadaag saaxiibadaada. Mahadsanidin.